wanaagsan dhageystayaal warkii oo dhan. Golaha aqalka sare ayaa la filayaa in bari ay ku dhawaaqaan guddi baaris ku sameynaya weerarkii sanadkii hore lagu qaaday guriga Senator Cabdi Qaybdiid. Warsoo saaraheena caawa Cabdiwahaab Xuseen Muxiidiin ayaa ka waramaya. xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in bari oo sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay 24 bisha 3 ee Maaj 2018 ay ku dhawaaqaan guddi baaris iyo dabagal ku sameynaya weerarkii 30 bishii December ee sanadkii tagay 2017 lagu qaaday guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah senatarada oo aan la xiriirnay. ku dhawaaqista guddiga ay ku dhawaaqayaan xubnaha golaha aqalka sare isla markaana baaritaanka iyo dabagalka ku sameynaya weerarka lagu qaaday guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa imaanayso iyadoo 13 bishan Senator Cabdi Qaybdiid oo kulankii golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka sheegay in uusan ku qanacsanayn guddigii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintaas u xil saaray waxaana uu maalintaasi dalbaday in loo saaro guddi ka kooban labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. ilaa hadda xataa teleefanada ku maqan yihiin ilaa hadda sida teleefanada cid ay ka aruursadeen maxaa laga helayaa marka mudane gudoomiye mudanayaal mudane marwaba waxaan rabaa arrintaas iyada maadaama aan